xabad waa la waday khasaaro baa laga helaa adduunka ka soo daaleen dagaal iyo dhibaato ama siyaasad ha la isku haayo ama qabyaalad iyo qabiil ha la isku haayo dhul ha la isku haayo kaliya ummadan wax danta u ah inay ilaahay ka cabsadaan gaar ahaan ummadan reer galmudug oo meeshan degan waliba deegaanka sheekhu ku aasan yahay culimada isugu timid dariska la ah si gaar ah waxaan baaq ugu soo jeedinaynaa باق نبضات إن والعلوبان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين maantay oo siniina waxaa soo gabagabowday magaaladan deegaankan Mirjicley ziyaaradii Shaykhana al-Allaama faqiihu Soomaal Sheekh Maxamuud Cali Wacays oo ilaa 8 maalmood soo socotay ilaahay subxaanahu wa tacaala sheekhan xariistiisa ha ku manaysto dadka zaa'iriinta oo yimidna ducada ay sheekha u duqeeyeen ilaahay ha ka aqbalo sheekheennana qabrigiisa rawda min riyaad aljanna ilaahay ha uga yeelo marka ziyaarada la yimaado dadka ahlullaahiga ah culammada waaweyn oo ajillada ah ummadan Soomaaliyeed jahligii kala soo diriray xumaatu diin oo xuraastuhu ahaayeen agtooda marka la yimaado qofka zaa'irka faa'iidada ugu sugan waa qidada iyo ictibaarta yaani zaa'irku marka uu meeshan yimaado arkooshi Maxamuud Cali Wacays oo kale meesha uu maantay ciid hoosteeda yaalo وأمواد ودم بقبورته مركز الزيارة حكمة كوتشرتا waxay tahay cibrada iyo waanada kafa bil mawt waa'idan mazuurka la ziyaarana loo imaana nafciga ugu sugano waa bisalaam alayhi wad du'a ila ducada loo duqeynayo salaamta waana midii nabiga sallallahu alayhi wasallam oo ku tarbiyeenay asxaabta rasuulka markii Aisha ay lahayd kayfa aqul seelayahay marka aan tago qubuurta السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين رحم الله المستقدمين منا يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم meeshaan runtii waxaa yimid dadkii ahlu cilmiga ahaa mudarrisiinta ahaa aadaabtii ziyaarada sida loo ilaaliyay sida dadka loo waaniyay waxaa meeshaan runtii la dhihi karaa qofka ka soo qayb galay waa qof fursad qaali helay gabagabada waxaan runaa meeshaan inaan baaq ka soo jeedino ummadda Soomaaliyeed meel walbay joogaan waxaan ugu baaqaynaa inay isu qalbi furaan inay heshiiyaan dadku waa ka soo daaleen dagaal iyo dhibaato ama siyaasad ha la isku haayo ama qabyaalad iyo qabiil ha la isku haayo dhul ha la isku haayo kaliya ummadan wax danta u ah inay ilaahay ka cabsadaan walaalahood kalena ay ixtiraamaan oo qalal furaan qof walba wuxuu og yahay daartan muddo yar inuu joogayo kana tagayo gaar ahaan ummadan reer galmudug oo meeshan degan waliba deegaanka sheekhu ku aasan yahay culimada isugu timid dariska la ah si gaar ah waxaan baaq ugu soo jeedinaynaa baaq nabadeed inay walaalobaan xabad waa la waday khasaaro baa laga helaa adduun iyo aakhira khasaaro ah laga helaa aad iyo aad arrintaas dadka ahlul xal wal aqdi uga codsanaynaa jazaakumullahu khayran.